intii u dhaxaysay qarniyadii 18aad iyo kii 19aad waxaa si weyn u jiray ka ganacsiga addoomaha wadamada Yurub, Afrika iyo Ameerika. muddadaasi waxaa la kala iibsaday 12 milyan oo addoomo ahaa, kuwaas oo isugu jiray rag, dumar iyo caruur badankood laga qaaday xeebaha Afrika. waxaa lagu qasbay in ay ka tagaan deegaanadooda. iyaga oo doomo saaran ayaa laga gudbiyay badweynta Atlanta si ay uga shaqeeyaan duni kale oo ku cusub. ka ganacsiga addoomaha waxa ay socdeen muddo hal qarni iyo bar oo la soo dhaafay. waddanka Faransa si rasmi ah waxa uu ka ganacsiga addoomaha uga bilowday 27 Abriil 1848. asxaabta doomaha waxa ay qireen qisooyin ku saabsan addoomihii ay qaadi jireen, sidii addoomahaas loola dhaqmi jiray, fariimihii ka dhashay dhacdooyinkaasi oo dhammaantood noqday qisooyin abuuray hab nololeed ka duwan kuwii kale. qisadan waxa ay diiradda saaraysaa nolosha mid kasta oo ka mid ah labadan dhalinyaro ee kala ah Yanka iyo Turiki oo iyaga oo xor ah ku dhashay tuulo ku taala gacanka Guinea. ma awoodo inaan tiro ku soo koobo inta ay la egyihiin maalmihii aan lugeynayay. waqtiga inaan tiradiisa dareemo xasuusteydu way ka baaba'day, laakiin waxaan qiyaasayaa inay toddobaadyo ahaayeen. waxaan ka mid ahayn dad kale oo midab ahaan annagoo kale ah. sanadkii 1825 Faransa waxa ay sii xoojisay ka ganacsiga addoomaha, ayada oo hawsha muddo 7 sano ah si qarsoodi ahayd uga dhex waday wadamo Afrika iyo Ameerika ku kala yaala. inkastoo waqtigaasi ka hor sanadku markii uu ahaa 1794 Faransa ay joojisay hawshaasi ka ganacsiga addoomaha, ayaa haddana boqor Napoleon uu mar kale dib uga bilaabay halkaas. sabab la xiriirta go'aanka madaxda jidaysay ka ganacsiga addoomaha ayay si laba kaclaysay shaqooyinkii doomaha ee daabulidda addoomaha, gaar ahaana xeebaha Nomti, Bordeaux iyo jasiiradda Hindida galbeed, iyadoo madaxda halkaas ay ka wadeen ganacsigooda saddex geesoodka ah. doomuhu waxa ay Yurub iyo Ameerika ka soo daabuli jireen hub iyo agab dagaal oo ay Afrika keeni jireen si ay ugu beddeshaan dad addooma ahaan loo kaxaysto, kuwaasoo laga iibinayay Faransiiska, Hindida galbeed iyo Cuba. kadib doomuhu waxa ay u jihaysan jireen dhanka Faransa, iyaga oo mar kale wada badeecooyin ka soo go'ay beeraha sida qaxwaha, sonkorta iyo miraha kakaawga. subaxnimadii xagaagii sanadkii 1825 doon shiraacan ayaa ka soo muuqatay badda iyada oo ku soo jeeda gacanka Guinea. marka loo eego xawaaraha socodka doonta, waxay Afrikada dhexe u soconaysaa muddo 3 bilood ah. 16 Abriil 1825 waxaan soo gaarnay xeebaha Afrika kadib 98 maalmood oo aan badda ku soo soconnay. intaas kadib waxa aanu ku jihaysanay in aanu raacno qarka webiga. sida lagu helo dadka la adoonsanayo waxa ay ahayd si fudud. waxa laga faa'iideysanayay kuwa ka soo cararay dagaalada qabaa'ilka iyo gaajada. markaas kuwa adoomada iibsanaya waxa ay si toos ah ula heshiinayaan hogaamiyaasha iyo boqorada deegaanada ka taliya.
kuwa doonaya in ay adoonsiga ka ganacsadaanna waxa ay si toos ah ula tacaamuli jireen ragga hogaamiyaasha ka ah deegaanada iyo horjoogayaasha qabiilka. wax weyn oo dhibaato ah lagalama kulmi jirin, inkastoo hogaamiyaasha qaarkood ay is adkayn jireen bilowga hore ee heshiiska. rag doonayay in addoomo laga iibiyo ayaa u yimid boqor Baabel, laakiin way ku adkaatay in ay boqorka ku qanciyaan dalabkooda. waxayna ku qaadatay muddo 12 maalmood ahaa. markaas kadib ayaa boqorka laga dhaadhiciyay ganacsiga loo socday. way ay bagabagam maxaad doonaysaa? midkaagan koytada ah. waxaan doonayaa 300 oo fardo iyo baqal isugu jira. wax badan oo xiriir ah ayaanu samaysanaynaa. munuma lool nekku fi munuma ko jox lu weesu téeméeru bopp ak juróom benn fukk wala ñaari téeméeri bopp. kaliya waxaa lagu heli karaa 160 ilaa 200 oo xabo. waayahay ii ogolow inaan wax ka iibsado oo aan la tacaamulo dadka deegaanka. dinaa ci xalaat. waan ka soo fikirayaa. waxaan sugnay dhowr maalmo iyo habeenno. waxaa igula jiray caruur iyo haween badan oo dadka tuuladeenna ka tirsanaa. waxaana la keenay tuulo ka fog tuuladeenna, waxna kama aqaan tuuladan. rag ayaa lagu hayaa mudulo kale oo ku yaala meel aan naga fogeyn. qaarkood ayaa dil lagu fulinayaa. raaxayso. rafet na lool mu gën a rafet li fi daan mujj. waa qori aad u fiican. wuxuu ka casirsan yahay kuwii aan hore u arki jirnay. waxaan haynaa dhowr nooc. waxaan haynaa kuwa ay Faransa samaysay iyo kuwa ay Holland soo samaysay. dooleem àgg na ci lu ndaw lële waa ji yore. hadda ma tijaabin karaa haddii kirligaas aan toogan kara iyo in kale? mudanuhu wuu toogan karaa jalmadda. waa caadi. haa mudane, waa toogan kartaa. hadda waxaa bilaabanaya isdhaafsiga wixii lagu heshiiyey, sababtoo ah raggani waxa ay heleen wixii ay deegaanka u yimaadeen. waxaa loo ogolaaday in iyagu ay doortaan addoomaha ay doonayaan. boqorka ayaa u ogolaaday in ay iyagu ismaamulaan. ragga la shaqaynaya kuwa u yimid halkan ka ganacsiga addoomaha waxa ay wadaan diyaarinta agabka ka hor inta aysan doonidu shiraacan. doonidu waxa ay ka kooban tahay dhowr qayb oo kala koraysa, waxaana dabaq kasta u dhaxeeya albaab ka samaysan alwaax. dhinacyada doonta waxaa laga sameeyay alwaax kor loo dheereeyay si dadka doonta saaran aysan fursad ugu helin in ay istuuraan ama baxsadaan. dabaq ahaan doonidu waxa ay u kala qaybsan tahay 2 qayb. waa qayb ay ugu talagaleen kuwa addoomaha ka ganacsanaya iyo shaqaalahooda, iyo qayb kale oo dadka la adoonsanayo lagu xareynayo. qaybta dadka la adoonsanayo laftigeeda ayaa ka kooban 2 qayb oo kala koraysa. waan idin la talinayaa dhagaysta. waxaa habboon in safarkeenna uu ku dhammaado si guul iyo reynreyn leh. sidaas darteed waxaad soo xushaan ragga kuwa ugu xoogga weyn. da ahaan waa in ay u dhaxeeyaan 15 ilaa 35 jir. caafimaadka xubnaha waa muhim. garaaca iyo shaqada wadnahana waa in aysan cilad ka taagnayn. dhirirkiisu waa in uusan ka yarayn 5 feet. aniga isoo fiiri. tirada gabdhaha waa in aysan ka badnayn 3 meelood meel tirada ragga.
tirada carruurtuna waa in aysan ka badnayn 3 meelood meel tirada haweenka. waxaa la soo gabagabeeyay kala soocidda kuwa adoonsiga loo wado waxaana bilaabanaya calaamadayntooda. sababta loo calaamadaynayana waa in boqorka dadka laga soo iibsaday uusan u awoodin in uu kala bedelo oo kuwii la soo xushay uu ku bedelo kuwa kale oo cillado leh. xaqiiqo ahaan baddu waxay ahayd markii iigu horeysay ee aan arko markii xeebtaan soo gaarnay. waxaan sidoo kale markii iigu horeysay arkay dooni weligay hadda ka hor maanan arag wax xajmi ahaan sidan u weyn oo intaan la eg. markiiba cabsi ayaa isoo haraysay sababtoo ah waxaan ogaaday in waxa loo diyaariyey in annaga nalagu qaado. inkastoo aan argagax u dareemay haddana waxaan iska raadinayay geesinimo iyo inaan nafteeda ku soo celiyo xaaladeedii caadiga ahayd. sidaas oo ay tahay suuragal iima ahayn inaan cabsida iska saaro. waxaan ogaa inaan wajahayno xaalad ka duwan tii aan ku soo noolaa tan iyo markii aan dhashay, laakiin ma ogeyn xaaladaasu sida ay u eg tahay iyo mustaqbalka waxa aan ku dambayn doono. doonta dhexdeed ayaa ragga loo wado in adoon ahaan loo iibiyo loogu dhex qubaynayaa oo rag gaar ah ayaa dhaqaya. ma ahan kalgacayl iyo naxariis darteed ee waa sida shay la rabo in la iibiyo sida loo nadiifiyo. sidaas darteed qofka badeecada iibsanaya waa in lagu qanciyaa tayada badeecada. sidaas ayaa raggana loo nadiifinayaa nadiifin aysan la socon daryeel kale oo bani'aadanimo ah. haddii midkood ay wax soo gaaraanna inta safarka lagu guda jiro oo jirkiisii laga helo wax dhaawac culus ah ama tabardarnaan cidna ma iibsanayso. sababtoo ah dadka iibsanaya addoommada waxay u baahan yihiin rag adag, caafimaad qaba oo aan wax dacdara ahi ka muuqan. waxaa waajib ku ah in ay qaadaan 182 qof oo addoommo ah si faa'iido looga helo maadaama ay bixinayaan agab u dhigma qarash badan si ay u soo qaataan dad addoommo laga dhigto. guud ahaan heshiisku waa 300 oo addoommo ah, laakiin kuwani waa dufcaddii ugu horeysay ee la qaado. waxaa lagu soo bedeshay qarash u dhigma marka agab ahaan loo fiiriyo 3000 oo dunta xariirka ka samaysan, 1400 oo qoryo ah, 1500 barmiil oo baaruud, sanaadiiq iyo rasaas ay ka buuxdo, iyo badeeco kale oo badan. indhihiina waxaan ka arkaa inay cabsi badan idin hayso, laakiin waxaan idin sheegayaa meesha la idin wado waxaa la idin siin doonaa shaqo, guryo aad degtaan, cunto wanaagsan oo aad cuntaan, waana la idin daryeeli doonaa haddii aad xanuunsataan. waxaan u taagannahay daryeelkiinna iyo ilaalintiinna. qof kasta qoyskiisa waa loo keeni doonaa, dibna wuu ula midoobi doonaa. ha welwelina, hana ka fikirina in aad carartaan. mar dhow waxaad u mahadcelin doontaan boqorkeenna nagu soo dadaalay. waxaa marnaba suurtagal noo ahayn inaan ku dhex xuridno doonida dhexdeeda. ragga way naga sooceen, sidaas oo ay tahay indhahayga isma gelin. waxaan aad u doonayay inaan tuuladeenna ku noqdo, inaan dib ula midoobo hooyaday iyo aabbahay, laakiin xaaladdu way igu adkayd. kowdii bishii Sebtembar way dhaqaaqeen muddo 137 maalmood ah kadib markii ay xeebta joogeen si dadka la isugu soo ururiyo. igu caawiya inaan dhinto.
sidaas ha samaynin. I caawi. sidee ku dhacday in Safaleeti ay la soo fuusho doonta ayada oo qofna uusan arkin? iyaga oo dhan ayaa dusha loo saariyay dhimashada gabadhaasi madowga ahayd. qof kasta waxaa la amray in 20 karbaash lagu dhufto ayada oo doonta dusheeda la saaran yahay. cadaanka kale ee doonta saaran maaha kuwa dhimasho ka baqaya, laakiin waxa ay ka baqayaan waa in aysan ogeyn waxa ay mustaqbalka wajihi doonto noloshooda haddii ay wax yar khilaafaan sida amarka loo faray. waxaan arkayno waa wax argagax nagu sii xoojinaya. waxaan dareemaynaa inaan lugta la sii galayno xeyndaab aan nololna ahayn gerina ahayn. dooni yaroo ciriiri ah ayaa la isugu geeyey dad badan oo rag, dumar iyo caruur isugu jira. ragga iyo dumarka waa la kala soocay, laakiin ciriirigu xad ma lahan. mararka qaar waxaan arki karnay iftiinka qorraxda ama dayaxa. iftiinkaas aan arkayno ayaan wehel ka dhiganaynay, laakiin si kastaba nolosha mugdi ayay nagu ahayd. u sheeg, ha heesaan, hana ciyaaraan. dhammaan shaqaalaha cadaanka ah ee doonida saaran iyo kuwa dadka madowga ah ee adoonsiga loo wado waxa ay bilaabeen in ay heesaan. cadaanku way heeseen, laakiin madowgu weli ciyaarta lagama hayo. sidaas darteed waa la garaacayaa si ay u ciyaaraan. inaan heesno ayay naga rabaan. luuqadeenna ma yaqaanaan ee aan heesno. Turiki waxa uu u baahan yahay in uu maqlo codka Yaanka. Yaanka waxay u hilowsan tahay Turiki, laakiin Yaanka waa gabar ad adag. waxaanu ka baqaynay inay jiro nagu dhacdo. qaar ayaaba xanuunsanaa oo madaxa ka sheeganayay, kuwana calool xanuun. qaar ayaa naga geeriyooday, sidoo kale qaar kuwa cadaanka ka tirsanaa ayaa iyaguna geeriyooday. laakiin ma naqaan waxay meedadka ku sameeyeen. ukaadi, ma waxaad rabtaa inaad qalin ku samaysid meydka? waxaan samaynayaa baaritaan noo sahlaya inaan ogaano sababta geeridiisa. ma intaasoo keliya ayaad waqti ku luminaysaa? iikaadi, wax baan ku tusinayaa. waxaan horey u soo bartay in dadka madowga ah ay xajmi ahaan ka maskax yar yihiin kuwa cadaanka ah. taas ayaan rabaa inaan si baraatika ah ku tusiyo, annagoo og in qof dadkii dhintay ka mid ah uu u geeriyooday maskax xanuun. hadda ma waxaad rabtaa in aad xaalad kale nagu furtid? oo ma waxaad doonaysaa in dadku ay rumaystaan in ay gar tahay cabsida dadka madow ee doonida noo saaran, maadaama aad leedahay maskaxdoodu way ka xajmi yar tahay teenna? urta nooga imaanaysa qaybta hoose waa wax aan loo dulqaadan karin. meeshu waa ciriiri, kulaylka aad ayuu u daran yahay, tiradeennu aad ayay u badan tahay. dhammaanteen waan dhididaynaa. oksijiinta meesha aan ku jirno aad ayay u yar tahay, xitaa qaarkeen ma awoodaan inay neefsadaan.
qof shaqaalaha ka tirsan ayaa mar kale dhaqaya dadka adoonsiga loo wado. ma ahan qubays nadiifin looga jeedo waxaa la doonayaa in la cirib tiro bakteeriya doonta ka dhex dhalatay oo dadka doonta saaran badankood ku faaftay. waa la dhaqayaa sidoo kale waxaa fursad loo siinayaa in doonta dusheeda ay hawo iyo diirimaad ku qaataan. nin ayaa geeriyooday. markasta oo uu qof geeriyoodo wadadaas ayaa la marsiinayaa. inta la qaado ayaa badda lagu tuurayaa. lama jeclayn in uu hal qof xataa geeriyoodo sababtoo ah lacag ayay ku fadhiyaan maaha jacayl iyo bini aadannimo loo qabo. isla dadka adoonsiga loo wado ayaa lagu qasbayaa in ay doonida nadiifiyaan, gaar ahaanna qaybta uu qofku ku geeriyooday, maxaa yeelay waxaa laga baqayaa in bakteeriyadu ay ku sii faafto doonta inteeda kale. halkaas ayaga guryo ayaa halkaas ku yaala. 26 Oktoobar 1825 doonidu waxa ay gaartay mid ka mid ah jasiiradaha Hindiya ee Faransiisku uu gumaysanayay xilligaasi. xeebaha Afrika ilaa jasiiradana waxa ay ku qaadatay in ay ku yimaadaan 46 maalmood. sidaas oo ay tahay khasaare aad u baaxad weyn ayay dareemayaan kuwa adoonsiga ka ganacsanaya, maxaa yeelay kuwa badan oo ay doonayeen in ay adoon ahaan u iibiyaan ayaa doonida dusheeda ku geeriyooday. sidaas darteed xaggooda waxa ay ka tahay khasaare maaliyadeed. 16 qof oo isugu jira rag, dumar iyo caruur ayaa geeriyootay. 6 rag ah, 5 dumar ah iyo 5 caruur ah ayaa dhex ku soo geeriyooday. dhammaantoodna badda ayaa lagu shubay. tani micnaheedu waa in 6% ay khasaareen ganacsigooda, kuwaasi waa dadka adoonsiga loo waday. laakiin shaqaalaha waxaa geeriyootay 4 ruux oo naaqudayaasha iyo shaqaalaha caadiga ah isugu jiray. aad ayaa loogu dadaalayaa in dadkan ay u ekaadaan dad caafimaad qaba, xooggan oo ilqabad leh. sidaas darteed shaqaalaha ayaa si gaar ah uga shaqeynaya oogadooda. ujeedka ugu weynna waa in qiimo fiican lagu helo. ma jirto qanacsanaan, raalli ahaansho, farxadna warkeed badaa. waa dad dhammaantood la soo qafaalay oo si qasab ah ku noqday dad la haystayaal ah. ma yaqaanaan halka loo wado iyo waxa ay la kulmi doonaan mustaqbalka. maalmo badan oo safar dhib iyo xakaar ah kadib ayaa jasiiradan la soo gaarsiiyay. waa hadda iyo marxalad kale oo aan ka sharyarayn tii hore. dareen iyo tabar ahaan waxba ma dhaamaan xoole suuqa loo iibgeynayo. kaliya hadda waxa ay ka nasiib badan yihiin kuwii doonida ku geeriyooday. amayba kuwaasba ka nasiib badnaayeen oo dhibkanba ka geeriyooday. waxaa jira liis dheer oo ay ku qoran yihiin magacyadooda, da'dooda iyo sifaadkooda gaarka ah.
haddii uu idinku jiro qof leh farsamo bir qoris ah ama farsamo yaqaano kale oo dhismaha ku fiican ha noo sheego. maxaad ka baqaysaan maad is sheegtaan? ka soo qaada aniga in aan idinka mid ahay. ka soo qaada aniga in aan idinla mid ahay adinka. qofka farsamo leh ha istaago halkaas. xaasaska la qabo ha ku biiraan raggooda. ragga xaasaska lehna ku biira xaasaskiina. ragga xaasaska lehna ku biira xaasaskiina. codkiisa waxaan ka gartay inuu been noo sheegayo. waxaad la kulmi doontaan madaxdiina shaqada ee cusub. waa dad annaga naga duwan. qofkii si wanaagsan u dhaqma way wanaajinayaan. erey kasta oo qaldan oo qof caddaan ah lagu dhaho waxaa ka dhalanaya ciqaab adag. aniga iyo Turiki waxaan rabnay inaan iska dhigno nin iyo xaaskiisa oo si inaan hal meel ugu shaqeyno, laakiin kuma dhiiran inaan xaggiisa u dhaqaaqo, isaguna sidoo kale kuma dhiiran. way nagu adkayd inaan isu soo dhawaano. tirada dadka addoomaha ah waa 270 addoon ah oo isugu jira rag, dumar iyo caruur. waxaa loo kala soocayaa sida ay u kala xoog badan yihiin, u kala dhaadheer yihiin. mid kasta waxaa lagu qiimeynayaa qaab dhismeedka jirkiisa. mid kasta kan kale ku qiimo ma aha xagga lacagta la iibinayo. halkan oo ah meesha dadka lagu hayo ayaa lagu naadinayaa beecooda. fiiri murqihiisa. baqalkani waxa uu leeyahay murqo kuuskuusan. 180 yaa wax ku darsaday. 200 mudane 200 230 ayaan hayaa. 230 waxaan hayaa 350. haye yaa wax ku darsaday. fursadan wanaagsan ha isdhaafinina. haye 650 miya 1100 waxaanu ka iibinay mudane Bonafom oo 1100 bixiyay. xalaal calay kani waa uu gadan yahay. iminkana waxaanu haynaa baqal kale oo aad u wanaagsan. qiimaha waxaanu ku bilaabaynaa 150
180 180 220 250 280 waxaanu haynaa 300 330 markii aan gaarnay guriga ama waxay ugu yeeraan guriga rabbiga ninkii horjoogaheenu wuxuu noogu tuuray eray ahaa alla maxaa tihiin dad nasiib badan waxaad gacanta u gasheen dadka cadaanka kuwa ugu wanaagsan halkanna waxaa jooga nin baadari ah oo sheeganayo inuu rabbiga xagiisa ka socdo wuxuu noo sheegay waxa ay dadka halkan jooga ay naga aaminsan yihiin wuxuu nagu yiri waxaa jira hal rabbi oo kaliya rabbigaasna wuxuu jecel yahay haddii aan la samayn wuu idin caroonayaa kadibna waxaa la idinku tuurayaa naarta jahannaba ilaa weligiin waad ku jiraysaan waxaan dareensanaa in wax nasiib wanaaga uusan halkan naga oolin oo aan wax nasiib xumo ka ahayn sababtoo ah rabitaan kuma imaan halkan waxaana xasuusanahay sidii silaca ahayd ee markabka noolagu soo daabulay ruuxdayda ayaan idin fidinayaa waxaad raacaysaan qawaaniintayda waxaad adeecaysaan awaamirtayda aniga ayaa qaalis aad ii ahaanaysaan haye soo soco waxaa lagu dhahaa sakreste waxay noo bixiyeen magacyo cusub cidna nama weydiin magacyadeennii hore ee noolagu yeeri jiray tanii markii aan dhalanay magacaagu waa Uzal waxay noola dhaqmayaan sidii aan magacba lahayn anigu waxay dhaheen magacaagu waa Daali maanta iyo wixii ka dambeeyay cidna magac kale iguma yeerin Jean-Baptiste mar dambe ayaan ogaaday in Turek loo bixiyay Sam Chom mudanayaashin ayaa idin sheegi doona sida aad hawshiina u gudan doontaan marka aadna adeecdaan oo aad si dadaal badan u shaqaysaan waad wanaagsanaateen laakiin haddii shaqada aad si wacan u gudan weysaan ama aad amar diido samaysaan ama aad isku daydaan in aad baxsataan waxaa la idin ciqaabi doonaa si daran oo ah sida uu qaanuunku dhigayo adoon kasta oo isku daya in uu garaaco mudanihiisa ama xaaska mudanihiisa ama caruurtiisa haddii uu dhaawac u geysto ama uu dhiig ka keeno waxaa lagu xukumayaa dil toogasho ah halka isku day baxsashana ay ka dhalanayso ciqaab adag isku dayga koowaad waa la xirxirayaa isagoo meel kore laga soo laalaadinayo isku dayga labaad isagoo qaawan ayaa la garaacayaa ilaa maqaarkiisu uu fiiqmo laakiin haddii uu mar saddexaad isku dayo in uu baxsado waa uun dil toogasho ah gambaleel ayay yeerinayaan marka ay qoraxda soo baxdo si ay hurdada nooga toosiyaan xilligaas ayaa shaqooyinka la bilaabayaa maalmo aan fogeyn waxaa waajib ah inaan mugdigan ka baxno rabbiga ayaa na caawin doona mid kastoo idinka mid ahi waxay leedahay qayb dhulka ka mid ah waxaa waajib ah inaad dhul beereedka si fiican ugu shaqaysaan wixii aad soo saartaan idinka ayaa iskale waad cunaysaan ama iibsanaysaan shaqada ma joojinaysaan ilaa maalinta sabdida maahee maalintaas oo ay ugu magacdareen maalinta aseendada marka aad beertiina iibinaysaan kor u qaada beeca sababtoo ah tani waa beertiina laakiin lacagta ha ugu tagin mundulka dhexdiisa sababtoo ah kuwa horjoogayaasha noo ah waa tuugo wayna xadayaan gabdhaha qaar jirkooda ayay ku bedeshaan xoriyadooda si ay u soo ceshadaan laakiin halkan nasiibkaas kama jiro sababtoo ah mudanaheenu waa nin xaasle ah laakiin wiilka ay walaashiis dhashay xitaa waa sidaas
haddii gabadhu ay tahay qof caqli badan isla markaana taqaano waxa ay tahay inay samayso waxaa laga yaabaa in mudanuhu uu jeclaado kadib uu xorriyadeeda siiyo laakiin joogto maaha wiilku uu abtigu u yahay wuu la falgalaa gabdhaha cusub ee adoonta ah sidaasoo ay tahay laakiin weligiis waxba ma xureynin waxaa wanaagsan inaad jirkiina soo ceshataan taasi micnaheedu yahay inaad xorriyadiina soo ceshataan laakiin addoomaha ka shaqeeyo tuuladan lacnadu ku dhacday way dhimanayaan iyagoo weli shaqaynaya isla markaana aanan helin lacag ku filan oo ay xorriyadooda ku iibin karaan shaki kuma jiro in la sumeeyay wuu dhimanayaa dhimashadiisuna suntan ayaa sabab u ah sun noocee ah anigu ma aqaan laakiin waxaad xaqiijinaysaa inay sun tahay xayawaanadii aan dhaqanaynay dhowr neef ayaa maanta kaliya baktisay 3 neef oo lo ah iyo 2 baqal qof naga tirsan ayaa sun siiyey ciqaabta dambiganna waa dil qofkii falkan wax ka og waxa uu wanaagsan in uu sheego haddii kale waa la idin ciqaabayaa dhammaantiin ayaa mas'uuliyadda qaadanaya waxaadna bixin doontaan qarashka inta neef ee baktisay haddii kale ciqaab adag ayaad wajahaysaan ama dambiilaha iyo gacangeliya kadibna aan iska kiin fasaxo inta ka horeysana meeshiina ku noqda dhaqsada Namakanga yana pondo ruwasige Namakanga yana pondo ruwasige Namakazi yana pondo ruwasige Namakazi yana pondo ruwasige Aye aye namiro namaganga 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 namiro namaganga Namakazi yana pondo ruwasige Namakazi yana pondo Sagiston uma baahna in aad naftaada ii qeexdo dhammaan adiga ayay ku hadalhayaan ee hore u gal sidoo kale dhammaan adiga ayaa lagu hadalhayaa waa xaaskayga soo dhawow dadka Faransa ku nool waxa ay weli ku dhagan yihiin afkaar hore wax badanna kama yaqaanaan xaaladda gumaysiga cusub adiguna waqti dambe ayaadna soo gaartay marka aad waqti badan joogtid halkan si fiican ayaad xaaladdu u fahmi doontaa waxaadna ogaan doontaa inay jirto baahi keenaysa in la sii wado kala iibsiga addoomaha ma jiraan shaqaale doonaya in ay Faransiiska degaan xitaa qofka madow haddii lagu sii daayo deegaanka kaligiis ma noolaan karo waa qof aan caqli ahaan isku filnayn iga rumayso taas miyaysan ka badbadis ahayn waxaan ku xaqiijinayaa dadka madow oo dhan hal maskax oo isku si u shaqaynaysa ayaa ku jirta waadna dareemi doontaa taasi ma xaqiiqo la hubaa dadka cadaanka ahi way ka maskax yar yihiin marar badan ayaan ciyaar dhaqameedkooda daawaday ma qiyaasi kartid sida ay u ciyaarayaan waa si qaab daran waxaan ogahay in ragga madow ay gabdhaha ka helaan marka ay sidaan u ciyaarayaan waana fursad ay ku haasaaweyn karaan
dambeyn waxaan ogaaday meesha uu Turiiki joogo kadib markii aan weydiiyey addoomaha kale ee halkan jooga isaguna sidaas oo kale ayuu ii raadin jiray habeeno badan ayuu ii soo raadiyey si dhumaalaysi ah dhowr toddobaad oo keliya ayaa ka soo wareegatay markii aan is aragnay kadib waxaa la gaaray maalintii la dilay 2 addoomaha ka tirsan kuwaas oo lagu eedeeyey inay xoolo sun ku dileen maalmo kadib waxaan isku dayey inaan cararno oo aan meesha ka baxsano marna ma ogolaan karno fikradda baxsashada waxaan filayaa waad ogtihiin ciqaabta ka dhalanaysa cararkiina micnaha xukuumadda ayaa naga dalbatay inaan qofna ka baxsan meesha uu joogo haddaad tihiin Son John iyo Deli lama jarayo gacmihiinna laakiin qaanuunku wuxuu dhigayaa in laydin ciqaabo 15 beerdisaar ma ahna qof xun laakiin sidaas oo ay tahay addoonkiisa si wuxuushnimo ayuu u ciqaabayaa waa sax addoonku wuu qaldamay laakiin inta hadda loo geystay ayaa ku filan beerdisaar sidiisa kale waa qof fiican haddii qof addoon ahi xanuunsado dhakhtar ayuu geeyaa addoomaha carruurta haysta qof shaqaale ayuu u sameeyaa si carruurta looga haayo inta ay shaqada beerta ku jiraan haweenka uur kale shaqada kuma qasbo haween badan oo uur qaaday ma jiraan kaliya 2 carruur ayaa sanadkan ku dhalatay gurigiisa haweenku badankood waxay jecel yihiin inay dhalmada ka hortagaan halkii ay addoon dhali lahaayeen laakiin haddii uu yahay wiilku abtigu yahay ee Benford waa nin aad u xun xagga dabeecadda iyo damiirka intaba gabadhu gurigiisa ay ka shaqaynaysaa ilaa ay ka dhasho maalinta xigtana shaqada ayuu ku qasbayaa inay qabato Turiiki wuxuu ii sheegay inuu addoomaha aad u garaaco xitaa carruurta yaryar ilmaha wuu garaacaa ilaa ay dhintaan waan baxayaa intaan suuqa albaabada loo laabin iska dhig booskeeda anigaa kaa wada iibsanaya maanta waxaa jira qaar addoommada ka tirsan oo qoraalkii akhriska ku fiican way la socdaan qaanuunka mudanuhu wuu garaaci karaa addoonkiisa laakiin xaq uma laha inuu dilo qof sida Benford oo kale oo ku sameeyey addoonkiisa wuxuu mudan yahay in xabsiga la dhigo aniga ima hoos tagaan askarta halkan joogta laakiin waxaan ku ballan qaadayaa in aan soo xaqiijiyo arrinkan
hadal waxa aad rabto aniga warka ma badinayo ma jiraan wax aan qariyo xaakimku maalin kasta waxa uu helaa fariimaha ay halkan ka qaadaan doomaha Faransa u safraya halkee rabtaa inaan ka bilaabo xagee doonaysaa maya waan ka helaa wax aan cuno si fiicanna waan ugu shaqeeyaa anigu waan shaqeeyaa laakiin waan nastaa marka aan rabo in aan nasto qofna weligaa kuma garaacin weligeedna ma dhicin maxaad ka baqaysaa waxaad ka baqaysaa in lagu garaaco haddii aad hadasho ma waxaad aaminsan tahay in erayadiinu ay soo taaban karaan dareenka dadkan madow ee halkan ku cadiban ma waxaad aaminsan tihiin in ilintiinu ay ku qasmi karto ilinta dadka madow haye ii sheeg bal qofka madow haddii uu fariisto ma wuxuu idin noqonayaa carshi aad fuuli kartaan ma waxaan beeninaynaa in qofka madow uu yahay hanti uu qofka caddaanka ahi leeyahay halkan waxaa ka jira wax badan oo aan sheeko lagu soo koobi karin waxaa dhacaya ciqaab bani aadamnimada ka baxsan qof ayaa waxaa qabtay 6 qof waxay ka jireen dhigaha kaliyana ujeedku uu yahay in dadka laga dhex aqoonsado gabar madow ayaa lagu eedeeyay in ay boolo xaday kadibna waxaa lagu xukumay in 50 karbaash lagu dhufto kadibna iyada oo qaawan ayaa basbaas la mariyay meelihii uu dhaawacu ka soo gaaray waa wax aad u xanuun badan ayaa halkan ka jira marka aad ku laabataan Faransa iska xaqiiji in adeegahaagu uu warqad soo qoro uu noogu sheegayo in aad sama tagteen kuwa halkaas jooga badankood waxa ay soo diraan waraaqo xambaarsan fariimo fasahaadinaya dadka madow ee halkan jooga waa fariimo tilmaamaya in dadka madowga ahi ay leeyihiin xuquuq la siman kuwa caddaanka ah soo dhawow waxaan u malaynayaa aad ayaad noola dhacsan tahay laakiin waan ku guulaysanay in ugu dambeyn aan waddankiisa ku celin safar raaxa leh ayaan idin rajaynayaa doonida ayaa dhaqaaqday iyada oo lagu raray sanjabiil joos bun qarfe hayl luubaan iyo badeeco kale oo badan sidoo kale dad ayaa rakaab ahaan u saaran
xoolo kale oo baqtiye ayaa laga helay beerta dhexdeeda. falkaasi waxaa lagu eedeeyay Turiki iyo 2 adoon kale oo beerta ka shaqeynayay. labada kale ee la eedeeyay waxay kala yihiin nin iyo gabar oo xaamilo ah. Turiki eedeynta ah in la sumeeyo xoolaha waxaa u dheer eedeyn kale oo ah inuu la kulmay xaakimkii magaaladan ka tagay dhawaan. garsooradu waxay go'aamiyeen in saddexdaba laga takhaluso, laakiin Solid oo xaamilo ah la sugo ilaa ay ka dhalayso. waxay codsatay in ay la hadasho Berdisaar. waxay ugu dhaaratay dhammaan eedeymaha loo jeediyay in ay been abuur yihiin oo si gardara ah dusha loogu saarinayo. sidoo kale Turiki in uu yahay qof beri ka ah waxa lagu eedeeyay, laakiin wuu diiday in xukunka la farageliyo. mar dambe ay haddana ka codsatay in ilmaha ay hadda dhashay uu dad kale ka iibiyo. taas ayuu ogolaaday, wuuna iibiyay cunugii. caadiyan adoomuhu marka uu horjoogahoodu geeriyoodo sida Turiki waxaa lagu aasaa qabuuraha, laakiin hadda Turiki waa la diiday in meydkiisa halkan lagu aaso. wax badan ayaan raadiyay laakiin ma helin. Abriil 1848 oo ku beegnayd 20 sano kadib markii la daldalay Turiki, dowladda Faransa waxa ay gebi ahaanba joojisay adoonsigii. Dangawa